مشرح مدحوينه xisbiga mucaaridka ucid aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen ayaa ka hadlay xaaladda guud ee magaalada Berbera iyadoo uu sheegay inay si laba kaclaynayso muranka ka taagan kaydka haamaha shidaalka ee magaalada Berbera oo uu sheegay in la wareejinayo suxufiyiin xabsiga la dhigay odayaal iyo xaalado kala duwan oo ku gadaaman gobolkaasi saaxil iyo guud ahaan xaaladaha kala duwan ee Soomaaliland ku sugan tahay isagoo xukuumadda madaxweyne Silaayana ku canaantay inay hantidii ummadda ka dhaxaysay wareejinayso waxaan digniino kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay maanta hadda waxa war degdeg inaga soo gaaray in magaalada Berbera lagu xiray 12 oday oo isugu jira waxgarad shaahidiin odayaal madax dhaqameed iyo qaar ka mid saxaafadda laftirkooda oo haddana qaar dib loogu celiyay arrinkana wuxuu daaran yahay arrinka haamaha shacabka Soomaaliland way ka dheegsan yihiin dagaalkii ka dhacay haamaha ee baarlamaanka inuu baarlamaanku laalina waa la wada ogyahay anu garamaayo sababta dawladda Siilaayo ilaa hadda haamaha u daba socoto haamuhu sharciga laalay oo baarlamaankii baa laalay anu garamaayo horta maxiriir baa ka dhaxeeya baarlamaankan labada bilood ee fasaxa iska galay iyadoo loogay barigii dhaweyde rabadaantii laga soo baxay haddana fasax kale inay ahaayeen haddana iyadoo dalku uu carqalad ku jiro oo arrimo xasaasi ay jiraan inay mar qura uu yiraahdeen intay yimaadeen laba bilood oo fasax ayaan qaadanay ma iyaga ma hoostiisa ka doloolaana waxa la yiraahdo anagu baarlamaan ahaan idinku dawladda iska dhamaysta wax walba oo waxaan sameeyaa shacabka Soomaaliland wali xolo ma iftiin laakiin waxaan sheegayaa arrinkan haamuhu wuxuu noqonayaa arrin xasaasi ah waana sababta nimanka wax garadka ee diiday ee ka soo horjeestay ee fikradooda cabiray la yiri loo xidhxidhayo iyagoo oo sharciga meel allaaliyo qofka bini'aadamka uu xor yahay dastuurkana ay ku qoran tahay qofku fikirkiisa inuu xor yahay inuu sheego loo baxay xilliyo dalku dhibaato ay ku jirto madaxweynuhu haamaha maalin qolka mu hadal la doonayay in la qaato sababta umu sharxin ummadda sababtan u bixinaya waa sidaas faa'iidada ay idin soo wada wata hal qof oo xukuumadda ka tirsan ummadda soo hor istaago iyo haamuhu faa'iidadaasna u bixinayna wali ma hayno 24 milyan baa soo galay 24 milyan ee soo galay wixii loogu bedelayay ma 24 milyan iyagu dhici jireen u baad doonayeen qoladan lagu wareejiyo oo shirkado macamalaha hoosta ay kala yeeshaan garamayno waxa la doonayaa in dadka loo sharaxo waxan ay malee sidoo kale waxa aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen fariin talooyin badan u diray gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland isagoo ka hadlaya arrimahan wuxuu yiri gudoomiyaha guurtida madana Saleebaan ixtiraam biiga madaaniga madana Saleebaan wadayaashii waaweynaa ee dalka laakiin madana Saleebaan waxa ka rajaynay inuu sidoo odaygii dalka u dhaqmaa shalay toole hadii uu leeyahay dekoraasada odayaasho ana in laga riixdo mooyaan meesha riixasho ma jirto doorasho jirta dalka dadka fartooda sharka iyo khayrka u haysa dalku doorasho ayuu galay xilligii la iska riixanayay qoriga iyo la isku shibanay wala dhaafay imka farta lagu codeeya Saleebaano adiga ninkii guurtida ugu weynaa doorashadan u diiday in xilligeeda ay ku dhacdo ee u kordhiyay dalka foodo gelin gaari maanta waxaad ku leedahay dhalinyaradii kuraasada ka kicimayno anagu idinkoo 80 jir dhaafay war adig 80 jir waxba daadeer waxa weey waqtigaaga wad qaata Saleebaano yaa khaatimada khayrka ilaahay ugu barakeeyay dalka bal wanaag u horseed baan anagu leenahay wax maanta ormayno anagu doorashan diyaar u nahay doorashadii bisida uga shaqeyn lahayd adiguna uga tali lahayd dalka aanad caqabad gelin lahayn falowed qabo Saleebaan mid kale waxaan u sheegayaa shalay wuxuu yiri dalka dhibaato ma jirto oo barwaaqa lagu jira Saleebaan oo barwaaqa lagu ma jiro dadku dhibaataysan yihiin dadka sicir barar baa kaga siiyay noloshii bay la xarbiyayaan oday iyo islaan kasta waxay la tacaalaysaa Soomaaliland waxay la tacaalayaan sidii ay quutal daruuriga u heli lahaayeen abaaro ba'an ayaa gobolada awdal iyo sidal saameeyay oo la doonayay dawladdu inay u gurmato dawladdan maalin walba aroor walba lagu soo kalahay maxaa la iibiyay ee hantida ummadda la boobayo ee la doonayo in niman dhargay oo mushtari oo macaashdoon in lagu wareejiyo waxaan oran lahaa ka daaya Saleebaan taa ka shaqeysan doonaya tiraad dalka barwaaqa ay ku jira Maan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.